sidaasay ambiyadu ahaayeen ridwaanullaahi calayhim. nabiyullaahi muuse calayhi salaam markuu fircawn ka qaxay ka cararay weli rasuul lagama dhigin, laakiin ambiyadu inay dadka waxtar u noqdaan baa ilaahay ku tarbiyeeyaa, tusiyaa. intaanay nabiba noqon bay bulshada waxtar u noqdaan. nabi muuse waa soo qaxay, madyan buu yimid. walamaa warada maaa madyana wajada calayhi ummatan min annaasi yasquun wawajada min duunihim imra'atayni taduudaan qaala maa khatbakumaa. dadkiioo xoola ooman ceelka ka wada waraabinaya oo laysgarab ordayo oo laysdaba marayo oo qof walba xoolihiisii la ordayo, wuxuu arkay laba haweenoo gabdhoodo meel cidlaah xoolaha ku celinaya. meeshan xoog baa shaqaynaya. ninkii xoog leh markuu xoolaha waraabsado bay inta itaalka darani wixii biyaha u soo haraya wakhtiga u soo hara ay wax ka raadsadaan. laakiin wakhtiga fiican iyo xoolaha la daryeelayay iyo waxba kuma laha. waxa uusan ma yaqaan, ma garanayo. meesha dhanba qofna kama garanayo, koytana wuu ku yahay. halkaasoo kale qoor waxaad ka fikiri lahay war qoladan masaakiin weeye, dadkaa waxaystiya xoolaha haystiya dhex oradoo meelaad ka cidgashay iyo taydtii qofka tiisam hormarinayee ka walwalayaay xaggaad ka cidgasha caawu ka fikiri lahaa. laakiin waxaa kala duwan qofka ilaahay u diyaarinayo ummadda humuumteedii iyo baahideeda inuu xambaaro iyo qofka isaga tiisa uun hamigeeda xambaarsan. muuse wuxuu qabtay waxay ahayd fasaqaa lahuma, waa u waraabiyey. laakiin waraabinta ma daba oolin maxaad ii ogoshihiin ku soo rida, idinka waxbaan idin qabtaye ani maxaan idinka helayaa ma ahayn. fasaqaa lahuma, xoolihii buu u waraabiyey. waa siday u galban doonaan, wakhti ka hor ay galban jireen. kadib wixii uu u baahnaa geedkuu aadayoo ilaahay uu baryey. ilaahayna faraj waa u furay. laakiin muhimmaddu nabi muuse calayhi salaam ilaahay risaalaa loo diyaarinayay. 10 sano kadib bay risaaladu ku soo degi doontaa markuu muddada dhammaystee laabto. laakiin waxaa ilaahay u diyaarinayay inay xambaarsan yahay qofku hamiga ummadda inuu waxtaro. waxaad dhibayaay maxaad ka qaban kartaa dadka waxtar inaad noqoto. ambiyadu saasay ahaan jireen. nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam xabsiguu ku jiray markii riyadii meliga uu fasiray ee la yidhi ituunii bihi ii keena. markii uu yimid ee shubhadii iyo madmadowgii iyo sheekadii iyo meesha uu ka saaray, waxa uu dalbaday waxay idhi ijcalnii calaa khasaa'ini alard innii xafiidun caliim. ummad abaaro 7